بسم الله الرحمن الرحيم باغرامكayga anigu xamar baan ku dhashay 56kii dugsi hoose dhexe sare waxaan kaga baxay Jamaal Cabdinaasir iskuulka Allaahida la oran jiray 79kii dalka waa ka baxay Kenya galay East Africa wax yar baan joogay sanad waxaan dhameen kadib waxaan tagay dalka Sweden 81kii 84kii waxaan tagay midowga Sovieti Ukraine Venice Medical Institute lixsanaan caafimaad ku bartay gaar ahaan takhasuska carruurta pediatrician kadib Sweden baan ku soo laabtay Folkeg School aqoon kororsi baan ku sameeyay EIR dhaqaalaan ka bartay institute EIR la yiraahdo la kuroon yahay dabadeed waxaan imid Qaahira 2006 قصر العيني faculty medical faculty Cairo University baan physiology maadada physiology ka qaatay 2009kii waxaan tagay Puntland waxaan macallin ka ahaa jaamacadda East Africa University medical faculty qaybta caafimaadka maadadaas physiology baan lecturer ka ahaa waxa kale oo muddadaas aan oday ka ahaa isbitaalka jaamacadda University Hospital ee Boosaaso dabadeed waxa la noqday 2010kii suduwaha caafimaadka regional health officer suduwaha caafimaadka gobolka Bari 2012kiina waxaan noqday gudoomiyaha urur siyaasadeedka midnimo ee Puntland waxa keenay laba sabab baan dhihi karaa sabab waxay tahay xaaladda dalka oo ah dalkii isbedel buu u baahan yahay nolosha sideedaba isbedel joogto ah ugu baahanta sideedaba nolosha 5 sano la soo dhaafay xaaladda aad maanta ku sugan tahay iyo xaaladda isku mid maaha 5 sano soo socotana xaaladdaadu way isbedelaysaa isbedelka xaaladaha waxay keenayaan in isbedel hogaameedna la helo wax badan oo ay qabteen waa jiraan maamuladii Puntland laakiin wax badan oo naaqis ah baa muuqda oo aanu isleenahay waa buuxinaynaa diyaarna aanu u nahay taas waa mid qodobka labaadna wuxuu yahay adduunyadii oo dhan baa isbedel siyaasadeed ka socda dawladdan aad joogtaan ee Mareykanka isbedel xoog badan baa ka muuqda waxa lagu soo koobi karaa in maanta nin madow uu madaxweyne ka yahay 50 sano ka hor riyada ma ayan oolin in nin madow dalkan madaxweyne ka noqdo maantana waaqi baan u jeednaa isbedel xoog badan weeye oo ka dhacay wadamadii dariska nala ahaa kulli waxa ka dhacay isbedel xoog badan oo ay dhamaatay caalamku waa iska gabaabsi xilligii talada urursan lagu hogaamin jiray ummadaha waayo baahidii baa badatay adduunku waa baahan yahay talada urursanna waa talo aan lagu qaangaari karin baalo laguma noqdo bal waxbay burbursaa annagoo taa ka duulayna baan waxaan isniri annaga awlaa u ah in isbedel aanu helno labada qodob baan adeer ku soo koobaya waxaan raacinayaa dawladnimadu waa aalad xoog weyn oo haddii la rabo in wax la qabtana wax lagu qaban karo haddii la rabo in wax la burburiyana wax lagu burburin karo wax qabadkeennii oo aanu kordhinay weeye sababta aanu ugu biiray siyaasadda waa run dadka aamusan ee tirada badan ee maslaxadoodii ay ka maqan tahay saaxada wax uga hadla weeye waxa aanu istaagnay baaqi ugu horeeyana aan ku sheegnay ilaa haddana aanu adkeynayna maxaanu u qabanaynaa dadkaas waxa weeye wax kasta oo awoodeenu ay gaarsiisan tahay waanu u qabanaynaa waxba ka hagran mayno ma nihin dad ul mucjiza wata ushii nabi Muuse kala markaanu dhulka dhigno hal mar isroogaysa hadba awoodda dawladeed oo aanu leenahay baanu xog u qabanaynaa wax aan ka hagranaynaa haba yaraatee
ma jiro waxa ugu horeeya oo aanu qabanaynaa waxa weeye inaanu taladii dalka iyo deegaanka ay dadka aamusani wax ku yeeshaan waxa ugu horeeya aanu qabanaynaa taaway waxaanu u qabanaynaa siyaasad caadila oo aan loo kala eexan reer ka adkaan reer ayan u muuqan kuwa adkaaday reer kalena ayan u muuqan kuwa laga adkaaday qof uusan u muuqan qof adkaaday qof kalena uusan u muuqan qof laga adkaaday waxaanu u dhisaynaa mu'asasaad kii u ilaalin lahaa habsami u socodka dowladda waxaanu kala dhilqinaynaa awoodahan isku dheehmay oo danta gaarka ah looga fushanayo awoodda dowladeed awoodda sharci dejin iyo awoodda maxkamadeed awoodo kala dhiliqsan oo kala madax si buuxda u kala madax bannaan mid kastana si saxa u fushato hawsheeda yaanu u qabanaynaa u dhisaynaa waxaanu u dhisaynaa hay-ad hanti dhowr oo shilinka dadku leeyahay dadka ka dhexeeya meeshuu ka soo baxana og xisaabayso soo bandhigta shilinka dadku leeyahay meeshuu ku baxana ka daba tagtoo soo bandhigta wixii khalal yimaadana maxkamad lagu geeyo qofkii la yimaada waxaanu u qabanaynaa mashaariic baanu u raadinaynaa shaqo abuur dhalinyarada boqolaalka kuna ee shaqo la-aanta ay ku hayso derbiyada taagan waxay qabtaan la wakhtigoodiina baaba-ay mujtamaca wixii uu ka filayo ka faa'iidaysan lahaana ay halkaa ku lumeen dhalinyarada inaanu shaqo camaliya practicala u samayno si ay u shaqaystaan noloshooda ay naafic u noqoto iyana uga faa'iidaan mujtamaciina ugu faa'iideeyo waxaanu u qabanaynaa waanu nabadaynaynaa qabaa'ilkan maalaa yacniga isku diriraya ee dilkan joogtada ah baanu dawo u raadinaynaa cudur aan dawo lahayn ma jiro dalkii in la nabadeeyo waxaanu u qabanaynaa haykalkii midnimo oo ay dhaqan ahaan u lahaayeen dadkan in loo soo celiyo waa la kala furfuray furfurkaasna rag baa ka shaqeeyey raggaasina maslaxad bay moodayeen oo aragtidii fashistada ahayd oo divide and rule qaybi oo isku dir si aad u xukunto adigu aad u sarrayso arrintaa iyadaa baanu meesha ka saay inay dad walaalaa yihiin maslaxadoodii mid tahay isku qasban yihiin caruuraha wada korsadaan xabadda rootiga wada jabsadaan wada cibaadaystaan sidaas noloshooda ay ku dhistaan arrimahaasaanu u qabanaynaa iskuulaadka jirana waanu u adkaynaynaa meelahaan iskuulka lahaynna waanu ku dadaalaynaa hadba annagoo la taagsanaynaa tabarteenna inaanu iskuulaad u geyno waxaanu ku dadaalaynaa isbitaaladan maleeshiya loo aadayo inaanu boosaaso iyo gaalkacyo iyo garowe uga dhisno isbitaallo waxaanu ka qayb qaadanaynaa ka hortagga wasakhda iyo waxyaabaha cudurrada keenaya xilli kastoo kulaylaa waxaa soo butaaca cudurro bandemiga wax badan baa laga hortegi karaa haddii dadka taladiisa midaysan yahay marka warkiiyo kooban annagoo wada tashanayna annaga iyo shacabkeenna annagoo wada tashanayna baanu qaabkan u tallaabsan lahayn iyo meeshaan isdhehaynay mujtamaca waxbaa looga qaban karaa baanu wajahaynaa dumarku waa mujtamaca barkiis weliba dumarka soomaaliyeed waa dumar aada u firfircoon oo bulshada kaalin weyn kaga aadan ka xoog weyn kaalinta ragga arrinka iyaga wuxuu mudan yahay in si gaara loo eego dumarku waxaanu dee bani aadan weeye bani aadanka rag iyo dumar ka kooban haddii aad bar ihmaalisid oo aad cidlo uga dhaqaaqdid waxa weeye mujtamacaagii oo bar xooggiisii aad ka tagtay wey kow horta inay wax bartaan baanu ku dadaalaynaa in wax la baro shaqooyinka fudud in iyaga lagu wareejiyo waayo waxyaabaha keenaya horumarka waxaa ka mid a dhalinyaradu inay shaqeeyaan waayo dhalinyaradu waa xooggii mujtamaca inay shaqeeyaanna shaqadii in loo qaybiyo ummaduhu haddayan qorsheye qoysku qorshuu leeyahy
ummaduhuna saas oo kale waa inay qorshe yeeshaan mujtamaca bulshooyinka ilbaxa ee mujtamacooda qorsheeyay 4 qaybood buu mujtamacu u qaybiyaan qayb handkaaba waa yeelka dadka jiran caruuraha yaryar kuwa xabsiga ku jira kuwa waasho buufiska qaba waxaas waa dad la quudiyo oo loo adeego qaybtaas wax soo saar male 4 meelood markii la qaybiyo qayb waa kuwa qaybta labaad kuwaas oo adeegayaan hooyo ciyaalkii nuujinaysa takhtar isbitaal joogo daweynaya qof nin xabsi ku jira ilaalinaya qof waayeela qof maaragtay u dabrano u adeegaya waa rubuc weeye rubucna waa handicap aan shaqaysan karin rubucna kuwaas u adeegaan 2 rubuc baa soo haray rubuc wuxuu ku mashquulsan yahay maamul ama xafiisyo dheh ama macallin dheh ama wax la mid ah rubucaas qudhoodu wax soo saar male laakiin shaqadoodaas lagama maarmo hal rubuc weeye waxa mujtamacaadka horumariya halka rubuc oo shaqo loo sameeyo oo howlgala barnaamijkaas baan walaal hadduu Allayd ma keenayna rubucaas gabdhiyo wiilal bay isugu jiraan gaar ahaan hooyada dhibaataysan baad ka dhawaajisay اعتبار gaara baanu siinayna halkaasayna ka bilaabanaysaa wax qabadkeen hooyada dhallaanka sida ama uur kale ama dhashay ee nuujinaysa wadanku aad buu ballaaran yahay ma wada heli karaan isbitaal horumar baan hordhac ahaan baan idinkugu sii sheegaya Kuwait hadda markaan soo marayay barnaamij caynkaas baa la diyaariyay aad u qurux badan oo caafimaad oo midnimo ay lug xoog leh ku leedahay already aan soo dhamaynay alxamdulillah layno ogolaaday muxuu yahay in la siiyo arday dhalinyaro ah waxbarasho caafimaad oo aan takhtar gaarsiisnayn nersisna ka koreeya takhtarna ma gaarsiisna nersisna ka koreeya waa takhtar haafa cunuga aqoontaas qaataa tuulaad ka soo qaaday magaalo yar oo secondary kaga baxay shahaado takhtar ma haysto ka tagi maayo waayo kii shahaado takhtar la siiyo soo noqon maayo ya waa adag tahay saad u ciishataa shahar badan uma haysid laakiin ninkan shahaadadiisa meel kale ka shaqeyn ma isugu ogyahay laakiin magaaladiisii buu mushahar fiican ku helaya cudurrada fudud oo dhan buu daweynaya cudurradii fudud oo dhan buu daweynaya takhtar weeye maaha farmashiyaashan wax iska qoro dadka dilaya maaha ninkii 70% aqoontii medicineka waa uu leeyahay uu haysta magaaladii 3 sanoona aqoonta ku diyaarinaya barnaamijkaas marka wax weyn buu ka taraya ilaahay idanka mustaqbalka caafimaad gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka markaanu caluula u helo example baan u soo qaataa caluula iyo qandala iyo waa magaalooyin buuraa ka sokeeya si sahal looma tago markaanu halka ugu helo ultrasound iyo nursing iyo takhtar nin clinical oo aqoonti caafimaadka kala bar haysta hada wax ka maqan male ya markuu arko ama isaga fulinaya arintii ama beforehand buu soo gudbinaya inta caafimaadka qabto ay socon karto habarta buu soo diraya arinta la xiriirda wariyaasha walaal 3 wax baa mujtamacu cadaaladiisa ay ku sugantaa 3 wax cadaaladu horta sideedaba waa wax dhib badan oo lama gaari karo waayo bani aadamkii waxa isaga abuuran anaaniyad gaara iyo wax jecelaysi iyo wax badsi iyo ninkii yiri Socrates baan filayaa inuu ahaa cadaalada teeda u macaan baa u kharaar oo maxay tahay la yiri wuxuu yiri aabaha oo qof dilay oo maxkamad lagu keenay marka caadilta waa inaad dil ku xukuntaa waa tan u fiican isla markaa iyada u kharaaro de aabe inta ku soo koriyay dil ku xukun wax qofka raqbadiisa soo jiidanaysa ma
bani aadamku si marka damaciisaas iyo bahalnimadiisa loo xadeeyo saddex wax bay ummadaha ilbaxa ah yay sameeyaan oo maxay tahay maxkamad madax bannaan hanti dhowr madax bannaan iyo media madax bannaan marka la leeyahay hanti dhowr madax bannaan dhaqaalihii bay ilaalinayaan waa madax bannaan yihiin laaluush kaama rabaan lacag kaama rabaan laakiin shilinkaa xaggee marisay wey markii lagu tuhmo waa inay kusoo hay-ad dhan oo hanti dhowr kow maxkamadda madax bannaan tan u sarraysa waa maxkamadda dastuuriga ah oo ragga awoodaha dowladeed haysta lagula xisaabtamo wixii uu khaldamo maxkamad baa la soo saaraya madaxweyne ahaado wasiir ahaado position kasta dalka kala ahaado professor jaamacadeed ahaado waxa weeye so far la eedeeyey waa inuu garbaxa maxkamadda yimaada maxkamadaha madaxa bannaan baa awooddaa leh wariyaha madaxa bannaanna wixii anshaxumi ah ee ka dhaca ama siyaasi ama qof caadi ah anshaxumida wixii gurigiisa uu la galo isagay jidhaa qofna qof uma dabagelayo laakiin anshaxumida publiga ah ma garatay waxa weeye wariyaha madax bannaan baa dabagala wariyuhu qofka sharafkiisa meel uga dhici maayo oo isagoo qoliisa xuquuq baa qabanayso lagu leeyahay laakiin wax kasta oo dadka ka dhaxeeya ninkii ku tagrifala wariyuhu waa uu soo qabanaya waana uu ka hadlaya annaga aragtideenna taa wey haddii alla kuuriyo dhaqanna aanu u lahayn qofka khaladkiisa in loo sheego aan laga gaban waayo qofku soo faar oo qaangaar yahay wixii khalad uu galo kasba u galay pricekeedana waa inuu isaga bixiyaa maaha in uu dad ku dhuntaa wariyuhuna arrimahaas weeye arrimaha uu soo faagayo haddii uu helo awood la shaqaysta annagu marka principeka naga go-an taa weeye warbaahintu inay ahaato warbaahin madax bannaan biyaada laba qodob baad ka hadashay midna waa xaalufinta dhirta midna waa wasakhda tan xaalufinta dhirta haddaan ku hormaro waa run xaalufin aad iyo aad u xoog badan baa ku socota dalkeennii xaalufin aad iyo aad u badan baa dalkeennii ku socota taqriiban sanad walba intay dowladdu jidhay dowladdii rejiimkii ciidanka ahaa baan ka hadlaya hay-adaha caalamiga ee bii'adda ka hadla waxay qiyaaseen 1 milyan oo geed sanad walba in Soomaaliya laga jaro dalka ugu degdeg badan processka saxaraha lama degaan inuu dhulku isu bedelo Soomaaliya 1 milyan oo geed maanta dawladda ay meeshii ka baxday maxaad ka filaysaa markaan arko baabuur qoryo ka buuxaan ama dhuxul ka buuxo oo jidkaanoo maraya oo idhaafo runtii xaqiiqatan wallahi waxaan dareemaa xanuun waxaa jira aanan ku xanuujinayn laakiin gudahaagii aad ka uncomfortable baa yani gudahaygii baan waxaan ka dareemaa xanuun hoose waayo waxaas waa dhaawac ku socda bii'adeenna iyo dhulkeenna iyo mustaqbalka jiilasha soo socda waa ayaan daro ma jidho siyaasad ku wajahan ilaalinta ee dhirta very easy baana looga maarmi karaa dhuxusha haddaan Soomaalinahay sababtoo ah maado kool la dhaho dhuxul dhagax oo aad ugu badan dalka baa jira aad ugu badan ninaan saaxiib nahay wuxuu ka qaaday dhuxul dhagax Sweden buugay waan Sweden ila degan raggan ruushka isla aadna kamid aha wuxuu geeyay laboratory ninkii Swedishka markuu analysis ku sameeyay wuxuu yiri dhuxul dhagaxan dalkiini ma taalo ma leedihiin haa buu yiri kimiya intee leeg aad bay u badan tahay buu yiri wuxuu yiri maxaa isku laynaysaa haddii dhuxul dhagaxan aad haysataa kalimad maxaad isu laynaysaa haddaad dhuxul dhagax haysataa waa very easy in la helo policy ku wajahan in dhuxul dhagaxaas aynu adeegsano dhirtana aynu dayno bal aynu abuuro intaan dayno aynu badino abuuro
nin warfaa la yiraahdo professor PhD holder oo beeyada ku qaatay deegaanka aad u yaqaan Mareykan buu idin la degan yahay professor warfaa wuxuu yiri 400 iyo intaasoo geed baa gobolka bari ka baxa oo qiimo gaara u leh nolosha meel ay adduunka ka baxaana ama uu yar yahay qaarkoodna ayan bajirin waa dhirta dabar go'aya research badan buu muddo ku waday ninka deegaanka hatta wuxuu xusay geedu hadda waxa ay sheegay fish baan ka sheekaysanay geedu ka helay deegaanka adduunka hore looma ogay lama oqon sida darteed magaciisa lagu sameeyay geedka warfaa baa loo bixiyay waxa weey waxaanu jarayno oo aanu eber ka dhigayno taas marka adeer siyaasad ku wajahan arinta in dhuxul dhagaxa la adeegsado caruurahana aanu shaqo uga helo dhirteena inoo baaqata baanu maaragtay inooga wajahan ama tan qashinka dawlad baa jidha dawlad hoose jidha oo waxa ugu horeeya ay qabataa laga rabaa ay tahay inay magaalada nadiifiso ama anaga hadda jaamacadaha markaan jaamacadda bariga Afrika macalinka ka ahaa qayb dhan baa jirtay waxbarashada ku saabsanayd public health oo aad looga barto cudurrada sida caadiga u yimaada ka hortagooda qashin fogeynta aad baan ardayda uga la hadli jiray wacyigelintuna waxay u baahan tahay awood ballaaran waayo dal burburay baan nahay dadaan waxba u dhisnayn baan nahay qashinkii baa waxa lagu qubayaa meeshii dalka ugu bilicda fiicna boosaaso aan ka soo qaadno waa badii baa waxay noqotay qashin qub badii raaxada loo tagayo la ilaalin lahaa bilicdeeda iyo quruxdeeda lagu nasan lahaa qashin qub bay noqotay marka adeer arrimahaas oo dhan waa arrimo xasaasiya dawladdan arrimahaas u istaagina dawladba ma hawlahaas weli adeer haddaan runta ku sheego maanu istaagin sababtoo 4 bilood baan jiraa cimrigeena waa 4 bilood 4 biloodna waxaanu ku jiray hardan iyo legdan siyaasadeed maanu helin waqti stable oo annana aan isu ururino annagoo midnimo aan dadkii meelaha muhiimka ah saan haddaba ku sheegayay waxaanu u soo wadnaa mashruucaas daweynta wax badan tari doona hooyada iyo dhalaanka iyo dadkii tuulooyinka joogay wax walba marka ma qaban karo uma istaagi karo waayo urur curdan oo hadda yimid baanu nahay waa si noogu jidhaa barnaamijka waa noogu jidhaa waxyaabaha ugu horeeya aan shacabka rabno inaanu u muujino inaan wax u qabanayno bay ka mid tahay waxaan kala kulmay soo dhaweyn walaaltinimo leh dal jacayl leh dad jacayl leh waxay noo ballan qaadeen inay gacanna siiyaan talana siiyaan maadiya macnawiba waxay noo ballan qaadeen inay gudiyo ururka midnimada halkan ka dhisaan bridge inoo noqdaan annaga iyo dalka waxay noo ballan qaadeen wixii tala ah inay nagu soo biiriyaan communicationkii waa iska sahal maanta adduunka waxay noo ballan qaadeen inay noo soo diraan xubno nagala qayb qaata ololaha siyaasadeed ee ururka in iyagu America dhexdeeda ay xiriir yeeshaan wixii ku qanca ururkan ay sameystaan dalad guud oo midnimo ah North America ay ka dhisanto halkaasna wixii message ah aanu isdhaafsano iyo talo annaga waxay naga filayaan dalkaas hadii ilaahay idanka gacanteena ilaahay ku soo wareejiyo waxay noqonaysaa wax midnimo meel kasta ay joogto awoodeedii ay ku soo wareegtay kala haanmayno kan halkan jooga sida aanan uga lahayn kan Afrika jooga kan Carabaha jooga kan Yurub jooga sida aanan u kala lahayn kan Galkacyo jooga kan Sool jooga kan Bari jooga kan Karkaar jooga ururku waa urur siyaasadeed maaha qabiil maaha koox
wax la cararayo wax qarsanayo dan gaar raba urur siyaasadeed oo message-kiisana waa cad yahay in ciidrog lagu sameeyo siyaasadda Puntland ciidrogaasna waxay ka imaanaysaa awood inta ay isku darsato iyo tala inta ay isku darsato waa ka baxay